بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل والبو نغلا سوcotaan kulanti wacan oo wanaagsan xilli wanaagsan waqti walbo ay idin tahay ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan uga hadli doono mid kamid ah qabiilada ugu waaweyn ee Soomaalida taxanihii beelaha Soomaaliyeed ayaa wili inoo sii socday waxa aan haduu alla ma yadhihin maanta ka hadli doonaa beesha direed oo la sheega in ay la dhalatay beesha Hawiye ayaan maanta ka hadli doonaa haduu alla ma yadhihin beesha direed waxa la sheegaa inay isla dhasheen beesha Hawiye ayna ahaayeen laba wiil oo uu dhalay ninkii ahaa irirkaasoo ahaa wiil uu dhalay Soomaale beesha direed san wada ogsoonahay waxa ay degan yihiin wadamo fara badan oo geeska Afrika ku yaalo wadamada geeska Afrika ku yaalo waxa kamid ah oo ay ku nool yihiin Djibouti Soomaaliya Ethiopia sidoo kale waxa ay ku nool yihiin wadanka Kenya beesha direed ayaa ah beelaha ugu faca weyn ee ku noola geeska Afrika tan iyo qarniyaal beesha direed ayaa waxa ay kamid tahay beelaha ugu faca weyn ee Soomaalida ah ee ku noola wadamada geeska Afrika qarniyaal fara badan taariikhda islaamka markii la fiiriyo qabiilka dir ah waxa ay taariikhdiisa dib ugu laabanaysaa ilaa 1400 oo sano ka hor waxaana la sheegaa in ay iyaga deganaayeen magaalada Zaylac ee taariikhiga ah ee ku taala wadanka Soomaaliya waxaana ku yaalay masjid la dhihi jiray Masjid Al-Qiblatayn oo ku yaala gudaha Soomaaliya kaasi oo la sheegay markii asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam hijradii koobaad ay u soo haajireen dalka Itoobiya ee ka dhiseen halkaasi waxa qarnigii 7aad soo badanayay dadka soo galaya diinta islaamka oo ay kamid yihiin Soomaalida sidoo kale taariikhda ayaa waxa ay sheegaysaa beesha direed inay ahaayeen dadkii soo dhaweeyay dad fara badan oo muslimiin ah oo u soo hayaamay ama soo degay geeska Afrika waxa ay sidoo kale qarnigii 9aad dhiseen boqortooyadii la dhihi jiray Cadal Kingdom boqortooyadaasi ayaa fadhigeeda waxa uu ahaa magaalada Zaylac qarnigii 10aad beesha dir gaar ahaan jifada la yiraahdo Jarso oo ahayd mid kamid ah qabiilada ku abtirsada dir ayaa waxa ay sidoo kale soo dhiseen boqortooyo la dhihi jiray Dawaro haduu alla ma yadhihin boqortooyada dhammaan Soomaaliya ka dhisneed iyo geeska Afrika barnaamijyo gooni ah ayaan ugu wada hadli doonaa dir ayaa sidoo kale waxa ay kamid ahayd qaybaha kala duwan ee qoomiyadda ku dhaqan geeska Afrika ee muddo fara badan soo dhaweynay diinta islaamka ayagoo sidoo kale naf maal iyo aqliba u huray inay diinta islaamka kor u kacdo beesha direed gaar ahaan jifada la yiraahdo madaxweyne oo ah jifo kamid ah beeshaasi ayaa waxa ay inta badan ahaayeen kuwa ku kala faafay geeska Afrika waxa ayna si aad ah u deganaayeen magaalada Harar magaalada la yiraahdo hadda Dirdhawe ayaa waxa markii hore la dhihi jiray Dirdabe taasi oo ahayd qayb kamid ah boqortooyadii la dhihi jiray Cadal qarnigii bartamaha boqortooyadaasi ayaa waxa ay ka talinaysay qaybo fara badan oo kamid ah Soomaaliya iyo dalka Itoobiya boqortooyadaasi sida badan hoosteeda waxa iman jiray qabiilo fara badan oo ku abtirsada Soomaalida iyo Oromada hase yeeshee boqortooyadii Cadal saldaneed markii ay daciiftay ayaa qabiilka Oromada waxa uu kaga faa'iideystay daciifnimadii soo wajahday boqortooyadaasi mar ayaan ka wada hadli doonaa sidii ay ku bilaabatay boqortooyadaasi iyo markii dambe halkii u dambeysay waxa ayna marka dib aynu ugu soo laabanay waxa ay bilaabeen Oromadii dhulkaasi deganeed in ay mishimaan ama ay laayaan madaxdii sarsare ee beesha direed gaar ahaan Gurgura oo kamid ah beelaha ku abtirsada dir beesha direed ayaa sidoo kale waxa ay ku nooleed wadanka Djibouti iyo qaybo kamid ah dalka Kenya hase yeeshee dhulalkaasi wax saldanada ah kama aysan dhisin walow ay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo la tirsado laguna xisaabtamo markii dagaalka uu yimaadana garab iyo hiil iyo hooba loo doonto dir ayaa sidoo kale waxa lagu xasuustaa in ay kamid ahaayeen dadkii gumaystaha iska diiday muddo fara badan la dagaalamayay beesha Biimaal oo kamid ah dir ayaa waxa ay muddo fara badan la dagaalamaysay gumaystihii dalka Soomaaliya ku soo duulay dagaalkaasi ayaa waxa loo yaqaanaa iska caabintii beesha Biimaal ee kaga hortimaaday gumaystiyaashii ku soo duulay dalka Soomaaliya dagaalka Biimaal ay la galeen gumaystihii Talyaaniga ayaa waxa uu qaatay muddo ka badan 20 sano
dagaalkaasi ayaa beesha biimaal waxa ay ku laysay guddoomiyaal fara badan oo talyaanigu uu u soo magacaabay in ay gumaystaan qaybaha kala duwan ee dhulka Soomaalida. dagaalo fara badan oo la iskaga hor yimaaday ayaa beesha biimaal waxa ay ku jibisay gumaystihii ku soo duulay dalka, balse nasiib darro markii dambe waxaa dhacday in laga itaalbadiyay maadaama hub casri ah iyo ciidamo fara badan uu talyaaniga haystay. markii dib loo raaco buugaagta taariikhiga ah ee ay ka mid yihiin kuwa uu qoray M.I. Lewis iyo kuwa kale oo fara badan, beesha direed waxa ay u kala baxdaa 4 qaybood. qaybta koowaad ayaa ah madaxweyne direed oo ay ku abtirsadaan Akisho oo ah Gurre, Gurgura, Barsuug. saddexdaas waxay isla yihiin madaxweyne direed. Madalug dir isna waxa ku abtirsada Gadabursi. sidoo kale Madoobe dir waxa isna ku abtirsada Ciisaha, kuwaasi oo inta badan dega wadanka Djibouti. midka kaleeta ayaa ah Meexa dir waxaana ku abtirsada Biimaal, Surre, Quraanyow, Garre. waxaa sidoo kaleeta jira Isaaq oo isna ka mid ah beesha dir. iyagana waxa ay ku nool yihiin waqooyiga Soomaaliya iyo gobollo fara badan oo ka mid ah Kenya iyo Ethiopia. haddii aynu dib u fiirino dadka caanka ah ee qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo horumarka ka soo qabtay beeshani waxaa ka mid ah Axmed Shide oo hadda ah wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia. waxaa sidoo kale ka mid ah Dr. Cabdulle Aadan Nuur. waxaa sidoo kale ka mid ah Dr. Bucul oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee soo barta qaabka qalliinka loogu sameeyo wadnaha. waxaa sidoo kale ka mid ah beeshani oo laga xusi karaa Cabdi Xasan Buni oo isna ka mid ah siyaasiyiinta, sidoo kalena ahaa wasiir ka mid ah wasiiradii soo maray dalka Soomaaliya, isagoo sidoo kaleete ra'iisul wasaare ku xigeen ka noqday dalka Soomaaliya. Cabdi Ismaaciil Samatar oo isna ah mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaano. Cabdi Warsame Isaaq oo ahaa gudoomiyihii Southern Somali National Movement. Cabdixakiim Yuusuf Aadan oo isna sidoo kaleeta ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan oo Cali Faarax isna waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee soo mara dowladda iskeed isu magacaawday ee Somaliland. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo hadda ah wasiirka maaliyadda ee dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Ibbi oo isagana soo maray ra'iisul wasaare ku-xigeen dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Saylici oo ah madaxweyne ku-xigeenka ismaamul goboleedka iskood isu magacaabay ee Somaliland. Cabdi Xamar Guud oo isagana ah fanaan ka soo jeeda dalka Djibouti. Saciid Xamar Guud oo isna la dhashay fanaankaasi isna sidoo kalena ku jira fanka. Cabdiraxmaan Waaberi oo isagana ah qoray buugaag fara badan oo novella ah. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil waxa uu ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Ruushka, sidoo kalena waxa uu soo maray wasiirka arrimaha dibadda. Cabdisalaam Hadliye waxa isagana sidoo kale uu ka mid yahay beeshani, waxa uuna dalka Soomaaliya ka soo noqday wasiirka arrimaha dibadda. Abu Cubayda oo ahaa amiirkii al-Shabaab ayaa isagana ka soo jeeda beeshan. Aadan Isaaq Axmed waxa uu isagana ahaa wasiir, sidoo kalena waxa uu ahaa siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta wadanka Soomaaliya. Aadan Roble Cawaale oo ahaa madaxweynihii National Democratic Party. Aadan Nuuriye isagana waxa uu ka soo jeeda beeshan, waxa uu la taliye qaas u yahay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. waxa sidoo kale beeshani ka soo jeeda Axmed Bululax oo ah siyaasi ku dhaqan wadanka Djibouti. Axmed Gaboobe isagana waxa uu ahaa wasiirkii cadaaladda ee Soomaaliya. Axmed Ismaaciil Samatar isagana waa qorayaasha Soomaalida ee ka soo jeeda beeshaasi. Caato Xuseen Ismaaciil waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka mid noqda baarlamaanka dalka Ethiopia. Ayaanle Suleymaan waxa uu ahaa orodiyaan ka soo jeeda dalka Djibouti, waxa uu ku abtirsadaa beesha dir. Barqad Cawaale Aadan oo ah journalist sidoo kaleetana ahaa agaasimihii Radio Huma ayaa isna ka soo jeeda beeshani. Daahir Axmed Faarax oo isagana ah siyaasi ka soo jeeda wadanka Djibouti ayaa ku abtirsada beeshan. Daahir Riyaale Kaahin oo ahaa madaxweynihii saddexaad ee soo mara Somaliland ayaa isagana ka mid ah. dad kale oo aad u fara badan ayaa ka tirsan beeshani. waxaa sidoo kale beeshani ku jira boqortooyooyin aad u fara badan oo ka soo jiray geeska Afrika. hadduu alla ma yadhihin waxaan isku dayi doonaa barnaamijyadeena soo socda in aan ku lafagurno boqortooyooyinkii ay beeshani kuna lahayd geeska Afrika iyo sidii ay ula dagaalameen gumaystaha, sidoo kalena Oromada ay ula dagaalameen markii ay
kusoo duuleen. tani intaynu ku kulmi doonno barnaamijkiisa kale daawadayaal waxaan inkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.